waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal maanseyahanadii waaweynaa ee kolba colkii ay la duulaan tixaha maaweelada iyo dhaawashada ah ugu roonaan jiray dhowrka jeerna hasha gabay maansadooda ku xusay waxaa ka mid ahaa darwiishkii dagaalyahanka ahaa ee ismaaciil mire la odhan jiray intaas markaan idhi waan hubaa intiina taariikhda iyo suugaanta daraawiisheed wax kala socotaay inaad istidhaahdeen rag allow waa kan ismaaciil soo hormariyay ma wuxuu u jeedaa goobtii ruuga ee 1913 daraawiishtii uu ammaanduuraha u ahaa ay kaga guulaysteen ciidankii gumaysiga ingiriiska goobtii ay koofil ku makali jireen ee geelii lagu diriirayna ay iyagu u adkaadeen waan hubaa inaad istidhaahdeen tolow ma wuxuu u jeedaa markuu taleex ku soo noqday gabaygii xog waranka ahaa ee sayid maxamed uu ka hortiriyey kana bilaaban jiray annagoo taleexnaal jahaad taladii soo qaadnay 700 oo darwiish tagotay neef doora sayidkayagu tii uuna yidhi tura ku heensaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacab qaybi ilaahay ha tabantaabiye ducada noo tuumi gabaygii uu ku sheegi jiray 11 halaad oo uu isagu geelaas ka helay hasha gabayna intuu ku xuso uu ku odhan jiray 10 gool tabaadiga dhigay iyo 10 unugooyo iyo 10 tiftii hore rimoo taani lagu qooqshay iyo 10 abeer towlano tikhilka qaalmooda iyo 10 irmaanoo aniga la igu taageeray iyo taan ergoon jiray markay 10 tahee joogto been laguma tookho iyo afaan taabud noqonayne intaa xarunta waa tubay xaq waa lagu tanaadaay haaho waa loo malayn karaa ujeeddadayduse ma aha inaan idinku jarbeebiyo gabaygaas caanka ah ee aan hubo inay soomaali badani wax ka taqaan kan ismaaciil ee aan maanta idiin hayaase waa mid aan sida ta'laydaas aan caan u ahayn lana xilli ahayn asiya aan ka dhicine lagu dhirarin karo hilaadda waa bartamihii 1920 ololihii dagaal ee ingiriisku uu daraawiish ku xasuuqay weli lagama biskoon mirashi iyo jiidali bixin iyo wow dooxada saraareed taleex dooxada qawlo boocame iyo dhammaan dhulkii ay qalcadaha ku lahaan jireen ayaa meydadkoodii iyo madaxyadoodii oo qalalay wada daadsan yihiin gumaadkaas wixii ku baxay kuba baxee waxay ka soo doogay weli dhaawacoodii iyo dhiiggoodiiba atifiq leh maxoolahoodiiba waxay u qaybsameen waxay ciidamadii gumaysigu boobeen qablankii dayuuradaha wax ka baynuunay iyo inta ceelashii laga sumeeyey wax tarab u leeday si kale kuma garatide maantaas ninkii ragihii wuxuu ahaa kii la baxsaday qoyskiisii wixii ka haray oo iyaga oo weli nafi ku jirto meel uun ku og ismaaciil mire oo tan iyo maalintuu garaadsaday aan daraawiish dhinacna u dhaafin ayaa ka mid ahaa dadkii aan gumaadkaas ku bixine ka noolaaday isaga oo aan neef adduunye lagu ogeyn xabsiga berberana laga soo daayey ayuu ku soo dhex dhacay qoladii uu ka dhashay oo muddo 20 sano ah aanu ku xeel iyo xero ahayn gabyaa magac dheer buu ahaaye waa loo xoolo gooye neef irmaan oo uu carruurta u maaro ayaa lihi iyo maal labadaba loo siiyey taasise uma noqon deeq intuu isku halleeyo uu reer ku dhaqan karo sawkolka inuu xoogsadaa lama gudboona ganacsi iyo dukaamo wax lagu gado beero la fasho dhoof dibadeed iyo carro edeg alaab laga soo rogo intaasba soomaalidii uu ismaaciil xilliga ahaa aqoon badan uma lahayn sidaa darteedna xoogsiga keliya ee ay tiqiini wuxuu ahaa dhaca geela oo waayaabe aan bulshadu ceeb iyo xaaraantoona u arki jirin si kastaba ha ahaatee ismaaciil duulaan buu qalqaalay
hadba wuxuu tiriyo gabayo uu faramarnaantiisa kaga calaacalayo wuxuu markii dambe isla helay cod aanu isagu ammaanduulihiisa ahayn asii uu gabayaagiisa yahay. baad iyo biyo wixii saad ay heli kareen intay awrta ku rarteen ayay galbeed afka saareen. agagaarka ceelka Caynaba ayay ka duuleen. dhowr toddobaad kadib ayay isa sii taageen halkii geelasha loogu baytiyey. mase waa cidla ceelsila show inta laga digniir haday baa laga farxaday, geelashiina laga qaxiyey. kolba nin socotaa waxay inta qabtaan waraystaanba bishii ay duuleen teedihan baa u bilatay, iyaga oo tulidna allaha ka dhigee aan neef qurihina u soo gacan gelin. anfici ay wateen baa ka idlaaday. markaas bay midhihii geedaha caloosha ku aamusiiyeen. maalmo kadibna intay haamihii iyo heeryadiiba ka tuureen bay awrtii u rarayd birta kala maarmi waayeen. fiiq meesha la yidhaahdo iyaga oo aad ugu rafaadsan ayuu colkii Ismaaciil ka duraantay inuu tiriyo gabay dhaawad uu eebbe kaga baryaayo geela ay doonayaan inuu gacantooda ku soo rido, iyaga oo u ballan qaaday haddii wax la helo in hasha gabay uu isagu qaadan doono, maanseyahanada kale ee colka la socdaana aanay kula murmi doonin. maalintaas buu mariyey gabay qurux badanoo si daawashadiisa looga aqbalo uu ku sheegay hawkarkii ay soo mareen iyo sida ay ugu adag tahay iyaga oo faramaran inay cayn ku noqdaan. intaan haddaba ararta iska dhaafo aan dulucda gabayga qayb idinka maqashiiyo, inkastoo uu dadka qaar ku yara adkaan doono. wuxuu yidhi, gahayrkii wardheer iyo hashii gudurka loo quutay, jibaaxeeda geediga hashaan gira ka soo raacay, hashaan guri caskeedii tirsay ee gama la ii diiday, ganuunkeeda xoor kale hashay gocatay laabtaydu, hashaan uurka uga soo gingimay 10 geed qaaqle, gob caddaysa iyo dheen hashaan godhanayee xaabay, wax kastaba angooye hashaan labada gows daashay. gaadiidka xoogga leh hashuu garabku naafoobay, gurgurshaaga awrka ah hashii galowda loo taabtay, goradhigaha haamaha hashaan garangarshee xooray, raggii wada gamuuraa hashuu gorongolee dhuubtay, hashii kabaha gaarkooda sare dhaguxu googooyey guntigeeda maradii, hashuu igu garooroobay guuriya boqoolaba, hashuu galowga eedaamay saalada gabowga ah, hashaan geli dhow moodayey gorofkeedu marayey, hashii laga gabaarayey galbeed iyo hashii loola kacay adari guudkeeda, gurigii amxaarada hashii gara gashee dhaaftay faalkii galayd, iyo hashuu mala ka gaafnaaday iyadoo hilaac garac yiroy garawa soo raacday, iyadoo daruuraha gabdhamay bila ku soo guurtay. ragga gobolkii wuxuu moodayaa inaan la gaarayna garaadaysan oo la iska daa gaf iyo faankii iyo inay taladu kugu gooni tahay. gareerkas gaabkii iyo guulow allow waa fogaa, gurigii caymeede oo kama gayoon karo colkuye gacanta noo buux. halkaas markuu maraayo ayuu colka xusuusinayaa inay ilaaliyaan ballankoodii hasha gabay ku saabsanaa. markaas buu sidii iyadoo geelii la doonayay la helay wuxuu tixdii ku soo gunaanaday, adinkuna halgeeraashihii golaha soo jooja oo wacadka qaar lama gogtee gacalo ii siiya. geelii ay u alla baryaayeen ma heleen, mase iyaga oo hungo ah ayay cayn iyo nugaal dib ugu soo laabteen. waa su'aal Ismaaciil iyo maalintaas raggii uu ka midka ahaa ay jawaabteeda la godgaleen. waxaase hubaala inuu tiriyey gabay wax badan inaga baraaya maantaas oo kale, karintii uu maansayahanku colka ka dabooli jiray, iyo mararka qaarkood dhibaatooyinkii ay duulaamada ka mudan jireen. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.